kartaa kaligee mihi. By the way, nimayo waxaa dhacay wax oo laga naxo oo qof walba uu ka naxo muslina. Laakiin dadka iyagu laba maada ma fahansiismo. Waxaan maxay u dhaceen iyo maxaa ka dambeeyo. Okay, waxaan waxay u dhici karaan waa masiibo, shaydaan baa qofka magaciisiin karo. waxaa laga yaabaa qofka inuusan maaragtay markaas marxaladda uu ku jiro aysan ahayn marxalad sal leh, inuu qofka cabsan yahay, inuu darooga cabsan yahay, inuu waalan yahay, inuu maaragtay miir qabo, inuu maaragtay qofku masiirsan yahay. Soomaalida waxaas dhan isma weydiiso, sheeray ku qabataa, nab waa sii gudbisaa. Maxamed Cabdullaahi Aadan kugu baahanahay caawa, one of the youngest Somali history oo soo maro. magacna ilaahay ka sokow garab igu siiyey inaan noqdo 2 times complete entertainer caawa ku jiro walaalkii aan jeclahay. waxaan rabaa marka inaan idin sheego wadaad reer waqooyi qeyr Allah siiyo Sheekh Cabdinaasir in la yiraahdo magaciisa waa mar walba ii gooyo wadaadkaas, laakiin waa dhageys wadaad reer waqooyi waay. aniga maxaa Cabdullaahi waa ku baahanaha ka bixin ayaa wuxuu yiri dadkaygiyo maalin loo ka hadlayo cudurka dhimirka maskaxda. wuxuu yiri adigoo heli kara hal kaniini inuu daawadaada noqdo inaad ka faantid iyo inaad qarsatid waa laga fiican yahay. qof walba oo bini aadana wuu xanuunsan karaa, anigaa xanuunsan karo, adigaa xanuunsan karo. naftan ilaaha gunta ilaaha gooyo. qof walba meelaad beerka la'aan kartaa, wadnaha la'aan kartaa, lugaha la'aan kartaa, indhaha la'aan kartaa, dhimirka la'aan kartaa. laakiin waxaa loo baahan yahay islaamkuna ay ogol yihiin inaad dadaashid. okay, cudurka dhimirka Soomaalidu way qarsataa, ama stress ha ahaado, ama depression ha ahaado, ama panic attack ha ahaado, ama mid kale ha ahaado. Mareykanka waa la joogaa, takhaatiir badanaa jirta. tusaale ahaan oo kale waxay yiraahdaan psychiatric wuxuu sameeyaa isaga dadkana hadal uu ku daaweeyaa, daawona wuu u qoraa. annaga Soomaali ahaan laba maada ma qabno walaalihii iyo muslimiinta ahayo. takhaatiirta caruurtana ma qabno, waa la shaqeeyay hooyadii dhalaanka oo fara ku tiris waaye, iyo takhaatiirta dhimirka sida Dr. Xabeeb oo ujeedina u malayn haddaan aniga been sheegayo. Dr. Xabeeb maalin baa lagu soo celcelinaa, ajri xasanaad Allah ka siiyo, howsha oo wado howl fiican waaye. maanta maalin aan helno Dr. Xabeeb heli doonaa insha Allah biidnillahi alkariim, howl fiican oo noo haya. laakiin waxaa jira takhaatiir kale oo hayana hadalka wax ku daaweyso, shrink psychologist waaye, ayaan hadal ay wax ku daaweeyaan. qofka bini aadanka wuu isla hadli karaa, anaa isla hadli karo. waxaa laga yaabaa xoolo badan inaan leeyahay, xoolihii inay iga dhumeen, oo xiriirka aniga ilaahay naga dhexeeya uusan fiicnayn, oo iimaan muga aanan lahayn, waa isla hadli karaa. dad waxaa jiri Soomaali qixi aan xasuustaa, dhalinyarada dhihi jira buufisaa ku dhacay, wuu baxay, waa la soo celiyey, waddan kaloo rabo inuu iska dhiibo. reerkii walaashiis waxay tiri intaasoo $1,000 ku siiyey, diyadaadii waaye iyo karfantaadii, lacag kale ma haysto. ninkii wuu isla hadla, waa la soo celiyey. anaa ma fahmi kartiin. marka waxyaabo waxaa jirta hadal lagu daaweyn karo, iyo waxyaabo daawo loo qoraayo qofka. wuxuu kaloo Soomaalida ay jaahilnimo naga tahay ma aqaano, ilaa haddana aan daawo u la'ahay. waxaa arkaysaa cudurradan dhimirka waxaa u badan dumarka. tusaale ahaan walaalihii haddaan soo qaato, waxaa maqlaysa meeqa maraa maqashay gabadhan umushaa lagu maray. fiiri, gabadhan umushaa lagu maray. gabadhu umul ma lagu mari karaa? anaa la imaraa 3 habeen 3 maalmood haddaan soo jeedo. qof 9 bilood ilmo lagu beeraayo oo midigna u seexanay, 9 bilood ilmo siday, oo markay 5 bilood noqotay culays fuulayo, oo midig aan u seexan karin, oo dhabar aan u seexan karin, oo bidix aan u seexan karin, oo xaraxawad aan u seexan karin, oo hurdada ku yartahay, oo habeenkii ilmo subaxii alasay inta ka kacday ilmo maaragtay u qubaynayso, u magciisinayso, iskuul qaar ugu dirayso, dugsi u dirayso, kuwa kale markay soo noqdaan hurdo aan helin, nasiina aan helin, fitamiino aan helin, cunto fiican oo isku dheelitiran aan helin, miyuusan waalanayn? waa fikri kartaa ummadeeda. marka waxyaabo badan ayaa jira oo naga hoos baxsan. annaga haddii aan nahay Soomaali ma qabno takhaatiirta caruurta, ma qabno takhaatiirta dhimirka. inta aan ka ahayn Dr. Xabeeb iyo hal nin kala arkay, intaasaan jira. dhowr meeqa sanaan jira, nin weyn ah.
دكتور حبيب ما هو بلوس علينا أجر أحسن على ذاك سهول في عنو قبنا تقاتير تاني سايكولوجيست قوان هذا أو شرينك إدهان مريكن كوكل يهودا قرأ استعماش نيو وقارك دتك يلحظان ما قبنو حدان قبننا well known معناها ترك أو popular معها marka waxaan leeyahay horta maxamed cabdullaahi aan rabaa inaan soo qabto horta nimiyo haddaa aragtiin qof wax ka duwan dadkii intiisa kale afkiisa ka soo baxay waxaa laga yaabaa qofku inuu xanuunsan yahay ilaahu subxaana watacaala og laakiin adinku inaada sheer ku qabanina oo aad sii faafinina taas ayaan codsanaya waxaa la mid tahay nin baa masaajid ku xaaray kii yimid oo u shala dhaco masaajidka dhan nijaasiyey ayaa la mid tahay anuu taan qabo waa taas waxaa kaloo ogaanaysiin ummadaydaay aniga artista Soomaaliyeed dadka dhan joogan ka sameeya madaxweynaha ma dhaafay laakiin limidaan leeyahay wax laga naxaayo ama cisigiisa ama qofka sharafkiisa wax u dhimaayo ma aha inaad sheegtid adigana inaad sheegtid ma anigana inaad sheega ma inaad ogaatiin qofka kan maseerahayo maseerka naftiisa jirro waa mama dhimarka uu laayahay ma wax buu cabay ma la sixray you never know marka waxaan idin leeyahay walaalihii muslimiinta ayo hal ceeb hadaa asturtid tobantaada la astura mid xigta ummadayda waxaan la yaabay xumaatada isu raacsan oo yar iyo weyn isku raacsan oo isku dirayaan warheeda qof muslimiina marka aragtid ceebtiisa waa la qariyaa ee lama sheego si ilaahay taada u qariyo ummadameysti maxamed cabdullaahi cali one more time muku jeedo haddaan ku soo qabanayaa intaas afeef iyo xeegaheeda iyo horudhac aqaarta sharafta waxaan idin leeyahay mid kale waa idin raacsanaa Allah subhanahu wa ta'ala ayaa wuxuu leeyahay qofka muslimka cisigiisa iyo sharafkiisa meelan saaray ogow rasuulka allana waa uu ka deyriyay in laga sheekeeyo in la sheego ceebaha muslimiinta haddana rasuulka alla wuxuu yiri ninkii naagtiisa waxay gogosha ku dhaxmaray ka sheekeeyo rasuulka allah dhahay nabadgelyo naxariisdiisa aad waa dameer kala ku fuulay suuqa dhaxdiis gabadhuna aanay la mid tahay aan jeclahay marka qiyaarta sharafta waxaan idin ka codsanayaa horta inaad ka xumaan kartiin waxa kan oo maaragtay cultural shock oo ka baxsan dhaqankii adinkana aad sheer ku qabanin wallahi adigu waan faacisa biritay ku qabsan kartaa inaad og tahay haddii maanta oo dhan nin baa maalin walba wuxuu ku mashquuli jiray Minneapolis Minnesota maalin walba wuxuu ku mashquuli jiray habeen walba wuxuu ku mashquuli jiray gabar maskiina oo Soomaaliyeed ceebaheeda ilaa markii dambe la keenay xaaskiisa marka haddaad muslimiinta ka daba shaqaysid waa laga daba shaqayn sheer haddaa ku qabatina qayb baa ka tahay maantaas hadda idin leeyahay ama maqla ama kasa islaamkuna maba ogolo culimadu waa ka dayrisay rasuulka Allah wuu ka dayri maxamed cabdullaahi cali aaw internetka ma ka go'ay aqaarta marka waxaan rabaa laba qofood oo walaalihii oo dadka iyaga wacyigelin u soo gudbiso saddex maalmood waa iska taqaanin anaga markii iskuulka la furo dadka dhan waa wada kala haayaan kala hadaasa maaragtay qof walba israaqad buu raadinayaa waxaan u naxsanaa anay naftirkii qof walba aqli leh oo islaam oo insaana markuu arko qof kale ceebihiisa qofka wax kasta ka suurtoodo bini aadanka wax walba filo wax walba qof aad caafimaad qabi ayaa hadda waalan karo qof hadda aad arkaysa hadda nafta ka bixi kartaa marka wax walba way dhici karaan maxamed cabdullaahi cali xasan gowda xasan aan soo qabana xasan sugbal حسن عم سوق بتاع حسن اوكي حسن فر بالك هذا فر حسن الدنيا حيته هلو هذه الدنيا حسن السلام عليكم حسن عليكم السلام حسن ان waxaan ka hadlayay adigana waxaa tahay nin muddo badan ku soo jiray xiriirka kubadda cagta wax badan ummadayada u qabtay walaalkaygii aniga adiga
isku reer baan nahay micnaha hal qoysaan ka wada imaana waxaan ka wadaa artiga iyo sportiga entertainmentiga soomaaliyeed waa mid xasan good wuxuu ummadayada waxaa arkaysaa qof wax laga naxa sameeyo ama wax aan dadkii ku cusub maalin wax cusubaa soo baxo anigu waxaan la hadlayay dadka sheerka ku qabta iyo dadka sii faafiyo adigu xasanow maxaad dhihi lahayd dadka yaga asalaamu calaykum waa ku salaamay cabdixakiin saaxiibkayga qaaliga ah niyo warto nin aad iyo aad aan u jeclahay walaaltinimo iyo ilaahay dartiisa aan u jeclaha tahay nin waxaa tahay qalbi wanaagsan nin qalbi wanaagsan dadka waxaan rabaa hortaas inaan u sheega midda labaad waxaan rabaa inaan dhammaan salaamo inta ku fiirsanaysa axsaabtaada kulligood magacyadooda ma ka gaara laakiin waa wada salaama niyo wallaahi waa calool xumo waxa socdo labadan beri meesha ka socdo dabcan aniga waxyaaba badanaan facebook live u isticmaalaa oo ay ka mid yihiin waxa aan sameeyo oon ku promote garay oo ah sportiga iyo arrimaha samafalka iyo maarkino tabarucaadka ilmaha agoonta markaan magaalada muqdisho tagay iyo soomaaliya niyo facebook sometimes waxaa ku qabanayso markaad aragtid waxa ka socdo iyo waxa aad rabtid wanaag inaad ka samayso wallahi inaad iska delete garaysid oo iska dhaafsid laakiin mararka qaarkood waxaa ku fikiraysaa in dadka bini'aadanka horto ilaahay abuurtay inuu og yahay inay xumaantaas ay samaynayaan oo haddana u naxariisanayo oo business siinayo lacag siinayo caafimaad siinayo ayagoo weliba dambaabayo oo dhib geysanayo oo ummadii rafaadinayo oo laga yaabo dad inay dilayaan oo mararka qaarkood in laga hadlo wixii si positive way fiican tahay dadka laga wacyigeliyo waxyaabaha samaynaysaan in la iska dhaafo inay fiican tahay facebookga waxaa rabaa dadka inaa u sheega dhammaan axsaabtaada iyo intana daawo doonto intana fiirsanayso in uu yahay tv oo kale everybody wuxuu leeyahay janaal weli waa ka faasisan yahay soomaaliya kuwa jooga hadda waana daawanayaan maleeshii kuwa jooga australia jooga meel walba waa soo wadaa yacni waxaan ka wadaa tv-ga wuxuu leeyahay broadcastiga wuxuu leeyahay semberi janaalo badan janaaladaasna waxaa ku jira mid waxbarashada ka hadlo mid sportiga ka hadlo mid newska ka hadlo mid arrimo xun ka hadlo oo waxyaabaha xun oo dadka hadda facebook soomaalida isticmaalaan oo dhaqan xumada ah kuwa ka hadlaa jiro kuwa la baangareeyey oo waddanka maraykanka aan joogno aan laga fiirsanaa jiro janaalo oo lacag intaa dhiibta paper view ah oo ma raba inaan sheego laakiin janaalo xunaa jiro marka haddii adiga aad dhaahdid janaaladan optionka adaa iskale marka gurigaada markaad fadhiisid oo qofna uusan kula joogin oo adiga ilaahay keliya aad tihiin option waxaa haysataa inaad paper view $5 baxsatid oo janaalo xun oo niman iyo naago wax xun sameynaa aad fiirsan kartid iyo inaad CNN fiirsatid inaad ESPN fiirsatid in yacni aad fiirsatid janaalada ma arkin xayawaanaadka hadlayo in yacni xumaan u soo gala facebook inuu maanta familkiisa ku jaa'ifeeyo in yacni qabiil uu ku caayo in waxyaaba dadka lagu booli gareeya dad badanaa facebookga lagu caayaa oo maanta aan soo geli karin oo cabsanayo waxba aan galabsan oo sas la geliyey oo depression ku dhacay oo rafaad ku dhacay marka dadka waxaan rabaa horta arrintaa kala dardaarmaysa inaan sii xoojiyo oo ah waxyaabaha aad sheergaraynaysiin waxyaabaha aad commenti garaynaysiin haddii aad la samaysid inaad qayb ka tahay qof samaynaya adiga adaa ka dembi badan tahay aniga adoon saaxiib ila inaan soo sheer garaysay qofkaas kale
ما أنا سؤال كوكب حسن جودة حسن. ما أنا سؤال قبل حسن. هلو حسن. حسن جودة مين مغشى؟ أنا سؤال قبل هذه وحارب ددوينان وحارب أنا وشيء حريرك سبورتي قيبته ماركتينج فيفا أوكي. xasan gowdax wuxuu ku shaqo leeyahay xiriirka isboortiga kubadda cagta qaybta marketinka fifa. walaalkii aadan kuu jecla waa mahadsan tahay. su-aashaan qabaa waxay tahay laba su-aaloodaan u kala qaaday. walaal anigaa xanuunsan karo cudurka dhimirka la yidhaahdo, adaa xanuunsan kara, ilaahay subxaana wa tacaala ayay ku xiran tahay iyo adiga dadaalkaada. aniga waxaan qabaa dad badan oo xanuunsan oo soomaaliyeed inay qarsanayaan. dadka marka debressura jiro, stressa jiro, banic attacka jiro, waxaa kaloo jiro cudurro kale oo dhimirka ayaa jiraan. dadka halkan joogaan nasiibay leeyihiinbo rag oo macnaha waxaan oo ku shaqale oo takhaatiira oo cilmi nafsi ku shaqale. laakiin anigu waxaan qabaa qofka ma ogid marxaladda uu ku sugan yahay markaas. waxaa laga yaabaa qofka inuu xanuunsan yahay laakiin adiga aa u aragtid qof caafimaad qabo oo socdo inuu yahay. ama waxaa laga yaabaa qorka in uu markaas wax ku kalifeen, ama ha ahaado shaydaan, ama ha ahaado maseer, ama balaayo kale ha ahaato, ama daroogaha isticmaalo oo waxaas iyo wax kale ha ku kalifaan. laakiin aniga waxaan qabaa haddii cudurka dhimirka dadkiisa iyo ehelkiisa iyo qofka asagaba uu isfahmi karaa inuu takhtar raadsado. dhakhaatiir badanaa jirto, ama yurub ha joogo ama maraykanka ha joogo, oo maaragtay waxa kan daaweynayo. waxaa laga yaabaa asaga dhanba inuu qofkaas ku xiran yahay in la jiifiyo. wax u baahan. aniga takhtarkayga wuxuu ugu yiri gowdax adigana waa og tahay, ciyaartooyaa tahay oo caafimaadka shaqo ku leedahay iyo inaad maskaxda diska iyo jirka aad dhistaan. hurdo badanaa u baahanta. qofka hadduusan hurdo badan helin, caafimaad uusan helin, cunto isku dheelantiran uusan helin, stress ku dhaco, wax la-aan ku dhacdo, wuu isla hadli karaa qofka bini'aadanka. laakiin anigu waxaan qabaa dadka yagu inuu xasan ka go-aan u malaynaya, dadka sheergaraynaya qofkaas aan ogeyn marxaladiisa isla markaasna ceebihiisa faafinayo. waxaa laga yaabaa qofkan berito qaladka uu ku dhacay inuu ilaahay u toobad keeno, dadka uu ka sameeyena uu weydiisto raaligel inuu cafiyaan. laakiin adiga haddaad sii faafisid oo qofkii hadda wiilkiyaa la faafinaya aadaan uga xumaaday. wejigiis yaa yaqaana, ani ma aqaana, ma aqoonin, adna ma aqoonin, maba rabo inaan arko. su-aasha meesha taagna waxay tahay mar haddii aad aragtid waxa kan inay yihiin wax fool xun oo dadkiina ay ka naxayaan, isla mar ahaantaasna qofkaas nabarka ku dhacay inaadan sii faafin. hal qof kalaan soo qabanayaa. maxamed okay, maxamed aan soo qabtay. maxamed cabdullaahi intuu ka baxay ma ka go-ay? maxamed cabdullaahi okay. maxamed kuma soo qaban karo walaal, taal ahaa baalka kuuma daarno. hal gabar oo soomaaliyeedaan rabaa oo gabar haddaa iiduna weydiinaysay. marka walaalayaal waxaan ogaatiin mar walbo iyo goor walbo ceebaha islaamka inaan la ilaaliyo. ma ogid qofkaas wuxuu ku sugan yahay, ma ogid qofkaas wuxuu ku sugan yahay, ma ogid aniga hata waxaan ku suganahay, ma ogid adiga waxaan ku sugan tahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala caafimaadkan haya. aniguna waxaan aaminsanahaybo qofka inuu ama shaydaan ku kalifay, ama shaydaan inuu ku kalifay, ama inuu wax kale uu isticmaalay, ama uu qofkan qabo cudurka dhimirka. marka waxaan idinka codsanayaa ilaaha idinku dhaarshay ummadaydiyaay, ilaaha idinku dhaarshay gabaraan dhalay ay dhibayso, hal gabaraan dhalay maasha allah ay dhibayso raal ahaada. marka waxaan idinka codsanayaa inaad maarata u duceysaan oo aad ceebaha qofkaasaytana aad faafinin. intaasaan idinka codsanaa. waa islaamnimo. waa okay. qaali okay, qaaliyan soo qabanayaa. qaali hilaal xaaj hilaal xaaj waa kuu soo noqonaa walaal. okay okay. السلام عليكم. السلام عليكم بيا
qaali waa ku salaam walaal soo dhawow qaaliyey waxaan rabaa laba maad inaad ka dhacday gabar kale walaasheena oo iyadana weriyaa ku jirto walaalle arrintan aan ka hadlay qofka inuu u baahnaan karo hadduu xanuunsan yahay takhaatiir inuu raadsado waxaan rabaa see u aragtaa horta labada fikiraan keena hadda horta walaalkeeyow labada fikir waxaan u malaynayaa inay tahay inay soomaalidu ku tahay wax oo culture dhaqana anaga leenahay soomaaliya nahay waxaan caalamku ay ka dhacaan oo maalin walbay dhacaan waxyaabahan oo kale way jiraan dumar ka hadlo laakiin anaga culture aan leenahay soomaaliya nahay dhaqan aan leenahay diin aan leenahay waxyaabo waxay nagu tahay way aaday noogu adag tahay afkeena kasoo baxda dumar ahaan cultural shock waay ha cultural shock ay nagu noqonaysaa culturekeena iyo islama shaqaynayso inaan waxaas la soo hor istaagno maxaa la yidhahdaa even if way dhici kartaa inay sheekadan run tahay way dhici kartaa inay been tahay oo ay gabadha mental ahaan dhibaato u gaarsiisan tahay oo mental ahaan ay sick tahay ama ay xanuunsan tahay qof dumar oo soomaaliyada ahay ani ahaantayda iska soo qabanayo haddii ay dhacdo inaan arko waxyaabahaas iyo wax la mid ah ilaahay diinaan leenahay wuxuu yiri ilaahay diinteena wuxuu nagu waajib yeelay ama sunna ama waajib ha noqoto labadaba miday tahay kolaytaba ilaahay wuxuu nagu waajib yeelay inaan ceebta isku asturno صح oo niraahno waxaa la dhahay dhar baa isku tihiin labada qof markay isqabaan waxaa ilaahay wuxuu iskaga dhigay dhar baa isku tihiin uu yiri ilaahay صح waxaa isku nahay dharaa isku nahay ma ahayn inay walaashay intay meel soo istaagto public ah ee ka tiraahdo maxaa la yiraahdaa saasaa dhacday way dhici kartaa shaydaan wuu qaadi karaa wiilkaas islaameed maxaa la yiraahdaa laakiin ayadu qofku wax lagu sameynaa iyada ma ahan inay waxay lahayd go'aan ka qaadato ka tagto haddii ay dhacday haddii aysan dhicinna inay iyada maskixiyan u xanuunsan tahay oo dumarka masayrka ragga Soomaaliyeed ma aaminsana masayrku inuu yahay qayb waalida ka mid ah dharku 20ka dharka uu ku wato bas ay fiirinayaan ma fiirinayaan masayrka wuxuu heerka uu gaarsiin karo waa marka kaliya uu qofku ku fakari karo waxyaabo badan fiir waxa lagu leeyahay gabaraan nin gubtay maanta ma awoodo ani hadda caafimaad haysta ma awoodo inta qof bil aadan saliid u soo karsado afil baad in saliid qof bil aadan u soo karsado aan soo kor istaagan ku shubo qofka dumarka markuu masayrsan yahay wuu sameeyaa maxaa koos garaynaya marka waa 8% marxaladaas ku jiro markaas waa horta qaali waa ka dhaxgalaya horta bini'aadamka lagu sheegayo hadayna waa ka hadlay runta waaye ragga Soomaalida badankiisa ma fahansiisno marxaladda ay ku nool yihiin dumarka yaga waa la shaqeeyay hooyadii dhalaanka 11 sano la shaqeynay hooyadii dhalaanka waa ninkii ugu horeeyay Soomaaliya waxaa ahay oo u dagaalay irbada dhiig joojinta gabdhaha marka ay umulayaan ay dhalayaan anyway gabadhu marxalado badan ay soo maraysaa markay uurka leedahay daayan ka hadlay markay 5 bilood gaarto hurdada u goynaysa midig iyo bidix uma seexan karto dhabar uma seexan karto xabad uma seexan karto waxaa laga yaabaa caruur kale oo yar inay haysato subaxii alasay ay ka kacdo ilmihii u libisto kuwa kale markay dadweyne iskuulka soo noqdaan cunto isku dheelitiran inaysan helin hurdo fiican inaysan helin farxad inaysan helin markay dhashana waxaa lagu leeyahay umusha lagu maray Soomaalida ma yaqaanin badankooda inay gabadhaas u baahneeday waqti in la siiyo waqti in la geliyo caafimaadkeeda laga warqabo waxaasoo dhan waa ogahay waxaan ka rabaa aawe ma ka baxday walaashii ma ka baxday waa ku jira waa ku maqlaaya inuu aad ku maqlaaya rabaa aniga dabeecadaan leeyahay adigana dabeecadaan leeyahay hadda waxa ma qariyo aniga artista Soomaaliyeed laba mara waxaa la ii diray anger management class inta u dhameeyay soonka booliisan gacan u qaaday qofka bini'aadamka you don't know marxaladda uu ku sugan yahay fiiri waxaa laga yaabaa dabeecadaha qofka uu leeyahay waxaa laga yaabaa hurdada haday kugu yaraato inaad flip samaysid ma fahmaysaa صح koofay fiiri aniga koofay cabo sigaar laba baakada cabaa marka hurdada igu yartaa dabeecadii dhana isbedelayso marka qofka bini'aadamka inay Soomaalida horta ogaadaan qofkan marxaladee uu ku sugan yahay markuu ficilkan sameynayay marxaladdu ku jiro maseerka waa waxun qofka hadii dhimirka laga galo waa waxun depression waa waxun
haddii VR qofka hadduu daroogo soo cabo waa waxun laakiin adiga islaamka waxaa lagaaga baahan yahay qof kale markaa aragtid ceebtiisa qof kale oo islaama inaadan sheegin si ilaahay taada u asturo ilaahay waxaa layidhi qofkii hal ceeb astura wuxuu u asturaa 12 ceebood gabadha haddeertaa waxay tiri a mother of 4 hooyo 4 cunug haysata qurbo joogta waa dareemi karnaa xanuunka ay leedahay kollaytaba ninka kalena waxay ku eedeynaysa waa inuu ninkeeda ka duufsaday waxaan aragna qoraalle isku qoreen uu leeyahay ninka wuu kaa tegay saanu ku yeelay kanuu ku yeelay qoraalle ay soo dhigtay facebookeeda uu leeyahay ninka wuu kaa tegay hebel kuma rabo mar horaan kuu sheegay kollaytaba ninkaas uga faraq xirtay ayadana waxay istiri saana ku aarsan kartaa kollaytaba maskixiyanna waxba sibay ka noqdeen isma lihi qof hooyo ah oo fiyow ninka ilmaha kaa dhalay wuxuu kugu leeyahay xishmad gooni ah ilmaha fiiri ilmihii waxay gaarsiisay damage gaarsiisay ninkii damage gaarsiisay horta maya iyada kaliya ma ahan qaali waxaan ka hadlaynaa walaal macaane iyada kaliya kama hadlaa aniga waxaan ka hadlaa waxyaabo badan oo ka horreeyaa jiraan waxyaabo badan oo rag Soomaaliyeed oo isbedelaa jiraan ma sheegi kartid afka ka maagaya adna ma sheegi kartid anna ma sheegi karo because dhagaha islaamka ayaan ogolayn number 1 Soomaali qabiiladeeda dadka fiiri biyaar ka dhaxgalo wiilaa jiray Soomaaliya gabar qabay ilmo lahaa deganaa la yaqaanay xaafadna la deganaa halkaan uu jooga asoo gabar ah oo gabar hadduu jidka kaaga hor yimaado asagu ku aqoonsanayo oo ku salaamayo oo adiga markaa tiraahdo qof heblaayo kuma aqaaniye kuma tahay isku kaa sheega isku kaa baalkii caddaynayo oo ku dhahay heblaayo hebelaa ah maya horta fiirihe qaali ma aha inaan sheegno ma aha micnaha waxaan diidanahay aniga hadalkii kugu socdaa horta waxaan diidanahay haddii aa aragtid anoo qaawanoo jidka maraayo waxmaa iga duube may inaa ii ceeb qarisid waay si adigana kugu ceeb qariyo islaamka saasuu ku leeyahay meeshaan ka imaanaya waxay tahay maaha oo keliya walaasheedii gabadhan oo keliya ma aha waxaa arkay dad oo waxyaabo xun sheer ku qabanaya dad waxaa joogaan Facebook u furan yahay oo qabaa'ilo dhan caynayaan oo la dhageysanayo oo 29,000 oo view oo marayo oo dadka ay ku faraxsan yihiin sheekh umul iyo wadaadka sheekh Cabdinaasir iyo markay soo galaan oo kun ay sagaareen 1k ay sagaareen waa laga fiican yahay inay sagaarina laga yaabaa 100 inay sagaarina laga yaabaa marka waxaan ka wadaa inay anigu cabsida waxa igu haayo waxa waaye wallahi ana daawan indhaha Allah ay tiro mar rabana inaan daawado dadkan ka maqlay mana rabo mana daawan doono because qalbiga bini'aadanka wuu sii baaba'aya waxa macnaha qof walaalka oo dhibaataysan haddii aad ku sii magaciisaysid wax fiican ma anigan waxaan qabaa u dagaalamayo waxa waaye walaal inaan la sheer garaynin haddaa wax xun aragtid qofkaasna aa canaanatid oo waanisid oo tiraa warheedha waxa kan islaamnimo ma aha dad wada dhashaan nahay waxa kan wax fiican ma aha waddo fiicanaa jirto ninkii naagta ay ku kala tagaan qof haddaa is haysiin waddo kalaa ku mari kartaan qoysas dhan inaan la caynin shiiq iyo shariifay leeyihiin waxaana kala fogeynaya waa waxyaabahaasoo kale waaye inaan adiga been kaa sheegin rag Minneapolis aan deganaa aniga abaay program dhanaan ka sameeyey rag waaweyn oo magac leh qaar madax qaar lacag haystaan oo gabdho yariisa telefoonada ku wataan every fucking day aan la dagaalaa oo waxaan dhaa miyaada gabar dhalin war miyaysan kula dhalan rag sig ahaa joogaan marka inaan afkaan ka maagaya ma dhihi karo oo ku soo celcelin karo magacyadooda waa aqaanaa laakiin inta soo qardar wixii si dhabaqaaya mi faanta maya in loo camiro ma ahan dadkaas oo kaleeto in loo camiro ma ahan waa in loo sheegaa waa in marka labaad la dagaashaa been ma ahan arrin guud laga hadlaa oo la wacyi geliya dadka noocaas marka waa maasantiin guud ahaan gabdhihii Soomaaliyeed waxaa moodaa meel waxaa moodaa gabdhihii Soomaaliyeed wallahi billahi waxa ku dhahay waxa gabar ooynaya waxa gabar Facebook waxa ku iri like waxa dareemay guilty aan dareemay gabar waxa arkay shalay xiiran oo ooynaysa gabadhaas oo kaleeto waxay u baahan tahay mid dharka wadata la buubuna waxa la way saxan tahay gabar intii soo qaawisa xaamilo ah oo wallahi billahi tallahi madax inta iska xiirtay gabadhaas oo kale way xanuunsan tahay dadkii intay qabtaan waxay leeyihiin baastarada tahay saana tahay waa la sheer gareynaa gabadhiyaa la caynaya gabadhiyaa lagu xadgudbaa gabdhihii Soomaaliyeed qurbaha markii la yimaado ay cidloodeen keligooda isla hadleen dhibaato mental ahaana gaartay
depression aa lahaa waxaasoo dhan waa ogaa qofka markuu depression haayo hadduu daroogo sii cabo ama uu soo jeedkiisa badsado ama ay bulshadii takooraan wuu sii waalanayaa waxaa jiraan aniga waxaan arkay culummada sida wadaadkan mar walba magaciisu aygo cabdinaasir maalla wadaadka reer waqooyiga magaciisa ii sheeg wadaad oo aqoon-yahan jiro waa mustafa wallaahi ninkaas inay si fiican u dhegaystaan anigana waa jeclaan lahaa dhalinyarada mustaqbalka hadda jaamacadaha aadaysa inay bartaan cuduradan dhimirka inay bartaan shrink wax la yidhaahdo oo kuwa la hadlo cilmu nafsiga iyo takhaatiirta caruurta inkastoo aan qabin hadda ka horaa waxaa dhacday islaan reer baadiye ah baa waxaa lagu yiri soomaalida waa dad iska ducaysane baa waxaa lagu yiri wiilkaagii wuxuu noqday takhtarka caruurta markaasay waxay tiri waa ayaan daro oo muxuu waxbarashadiisa u dhamaysan waayo oo u baran waayo sida dadka waaweyn loo daaweeyo marka ayaan daran haysato waayo maba ogaba takhaatiirta caruurta adinkiya dadka bulshada waxaa leeyahay dadka socialka ku dhac dadka oo maxaa jira dad walba waxay leeyihiin dad soo gaarsiiyo oo message-ka dadka gaarsiiyo oo laga rabo inay sheekadan u istaagaan oo waxyaabahan ay ka hadlaan waxaa moodaa Soomaali haddaan nahay haddii caawa waxaa la leeyahay Cabdixakiin Biar wuxuu sheeguu waay dad badan dhahay wuxuu sheeguu waay waa soo duqoobo hadda xataa filimada waa joojo waxbarashada afka caawa saaki xalay shaqadan galay waxaan ka soo baxay duurada markaan ka soo baxay ilaahay maqlaayo oo ilaahay meesha nabad iga makiyo arrin Soomaaliyeed sameynay midabada iyo waxaan sameynay calaam su'aalkii la kala gidiyo 20ka artist oo Soomaaliyeedan meel isugu geeyo howl adag aan ku jiro ummadda Soomaaliyeed afkiyaan ku shaqaleey maqaso hal wax hadaa qabatid oo lacagna waaye energy waaye time waaye wax kale ma qaban kartid oo ilmana waa joogaan iyo adduunkana waa saas wax walbana waa payment marka aniga inta iga aadaneed intaan waaye waa la shaqeeyay hooyada waa arka afka Soomaaliga ciyaalka u filmaana ka sameeyay waa arkay ma sha Allah wallahi mudooyinka ma sameyn karno wax filina maxamed cabdullaahi cali ku jira ninkii filmmakerkii ugu da'deeraa Soomaaliya afarta film la sameeyo hadda idaawanayo filmkii qabiilista number 1 iyo cusbo iyo ninkii la sameeyaa ku jiro marka walaalayaal waxaan idinka codsanayaa adigana ka codsanaya walaashii muslimada iyo walaashii wiilasha dhalinyarada muslimiinta ah inaan ceebaha muslimiinta la faafinin haddaa aragtaan qof xun wax xun markuu kuu soo sheergaray oo u tiraahdo wareedhe waxaanoo kale hanoola imaanin inaad tirtirtaan wiilkaas Soomaaliyeed wajigiisa in la arka ma aha gabadhaas in wajigeeda la arka anigu ma qabo wiilkaasna wajigiisa in laga tiro qofka haysta sawiradiisa oo islaamnimo ah intaasaan leeyahay because wallahi waa ku damqanaysa wiil saddex wiil iyo gabadhan dhalay gabadheeda wax in la yeelo ma rabo wiilasheedina wax in la yeelo ma rabo so qofka dadka kalena waa la mid marka iyo nafteeda in wax la yeelo ma rabo marka waxaan idin leeyahay wax inta sheer gareynaysa Sheekh Mustafa iyo wadaadadan waaweynka ah sheer gareeya iyo kabcada iyo si loo dhisay iyo hadda xijka la maraay iyo si loo xijinayo waxaas sheer gareeya انت ان شاء الله بإننا بقى waxaan rabaa inaan mar u sheego gabdhaha Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan dhaho si kala ragga loo karbaasho si kala hal iskaga celiyo laakiin waxyaabaha qaar wax meel la soo istaago ma ahan waxyaabaha qaar inta saqadro arintan inaan joog sameey moogtahay saddex joogan gabdhaha Soomaalida ka gaarsiiyay gabadha maas gabdha badan waxay dhaheen Cabdixakiin xoogaa lacag ma lagu soo siiyo ragga macnaha dad badankood waa dadka aan ka siin xoogaa waxa bay ku fahmayaan laakiin gabadha si toos ah soo abaartay waxay ugu tiri eeyaa tahay oo nacalo ku yaala inboxka igu soo dadka markaas walaashi waxaan ku dhamaa xanaaqin marka because hada artista ama public figure tahay ma aha inaa xanaaq waxay walaashi maxaa ku casmkaasi tiri saddex joogan ka tiriyay tiri hal mar gabdhaha ku shadatay marka waxay inteen ragga aan kor saarnaa wax ka sheegay marka hadda ka bacdi hataa aniga hataa inaan ragga la kor saarnaado waa dumarka aan waxba ka sheegin oo aan la una duceeyo marka insha Allah bi'inni la karim dadaalka hala badiyo wallahi wacyigelinta hala badiyo sheerin waxa xun ilaaha idinku dhaarshay yaa la sheer gareyn cafi masaabax naftaan meel ay jirta qaaliye wallahi ilaaha og qofa maanta aragta biriis maqlaysaa ma wallahi Facebook wuxuu noqday maalin kasta qaracana yaalo maalin kasta like wallahi waxa oo Facebook aad u xumaada ayaamahan dambe insha Allah bulshada Soomaaliyeed waxa leeyahay aan ka fiirsano waxyaabaha aan sameynayno aan ka fiirsano subhanallah hadda koora wiilwaalka iyo meelaha lagu casuumay marka oo starska Soomaalida imaadeen
6 sano ka hor facebooka waxaan ahay number 10 qaali mogtahay صح haddana ma la ii yaqaano macnaheedu ma fahanta anigu waxba ma qaray ma ogdo dadaa gadaashay soo baxa iga caansanaa jiraan macnaha waa fahmi kartaa adiga marka waaga hore caansanadu waxay ahayd wallahi inaysan jirin VHS aa jira DVD ma jirin social media ma jirin internetkan waxaas ma jirin VHS cajaladii waaweynaa markaan soo baxayaa jireen oo anaga naftirkeena copya naftaada looga qaadi jiray adoo leh ISP number iyo copyright adoo leh stuudiyaasha watayna koobiyeen jireen oo hal mar waxaan soo saara 2 filim markaasaan kii koowaad markaan lacag ka sameynay kii labaad aan ku qasaarnay waxaan samayn jiray marka waqti dheer ay kugu qaadan jirtay inaa caan noqotid hadda uma baahna inaa caan noqotid waqti dheer uma baahno waxaa soo gadanaya telefoonka salsalaaxayo waa noocaan internet Facebook furanaysaa hawii idaarooda horta ka bilaabaysaa ma faanta haweenka ku gudinaysaa maalinka dambe naa qaabana soo saaraysaa maalinka dambe nina kor iska laalacinaysaa maalinka dambe aad xakiin biyaari caatidiisa gaday maalinka dambe kuwa caloosha waaweyn la kuwa bidaarta leh ha dhaafin adiga waxa walba gal waay marka ilaahay khayran ka dhigo biliga subaga islaanta subaga siiraysa odaga goorma inaad markaa samaysay long time asideed waxaa kasoo wareegtay 17 sano fadhis life aan ku jiraa gabadheeda waxay leedahay who is she dhowsa marka qaali waa salaamantiin dhalinyarada waa salaamiin kulligiin waa salaamantiin salaanta islaamka idinkaga taga ilaaha idinku dhaarshay islaamnimo ma aha yaa la sheer garaynin walaalahaygu waxa igubaa wallaahi ubillah utalla waxa wiilkaas wajigiisa la arkay wax ceebo waaye qofka muslimka inaa ceebtiisa qarisid allaha kugu duwo ha fagfagin ceebaha islaamka بإذن الله إن كان عندك جتجا إنا كجوبتين والله سي إلهي مت جرجاد وبد باديو سي إلهي وبد بادي شرف كذا سي إلهي وبد بادي بلايك هاي سو سعتي أديك يشرك وسو سعتي أنت أصلا كلها سلامة الإسلام كأنك جتجا ولكن عبد الحكيم هدي عن قلدمنا هلي عفيو كل جين عفسة إجتين خير أدي رجينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته one love